qofka awalba Soomaalida waa iska ogno dugsiga marka la bilaabayo macaamadu soo dhigtay ilmaha yar sugan 8 jir amba 10 jir ayaa waxbarasho lagu dara 8 jir baan ahno 8 jir marka lagu daro halka maxay sugu 8 iyo 12 jir soo oo cumrigiisii 20 soo cunay ayuu jaamacad u xidhiidhinaya kadib jaamacad uu galaya ku galo hadal ka soo baxaya kadibna shaqo ku waayay imika waan ognahay bulshada shaqo la'aan bay ka cabanaysa maxaa yeelay dadkii habkan wax loo barayaa hab qofka ka dhigtay in shaqo cid kale ka suga aan shaqo sagu samaysan iskii yani inuu cid shaqaale u noqdo system qofkii ku dardar gelinaya oo ku dhiiri gelinaya ayuu wax ku soo baranayay kadibna sababta awgeed ba Soomaalida